بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هل كان وحان مسلمين ولا لها أنباق أوجد شيئا إن مساجدك هذا أجوين وجمع بدن إن لمارت لدسهايو ودقح لقدسهايو marka muslimiinta cid kasta oo namaqlaysa oo arinta ay soo gaadho waxaanu ka codsanaynaa inay ka soo qayb qaadato beedka Ilaahay dhisitaankiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yati ahadakum al-maut wa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إلهي سبحانه وتعالى وحجر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. مركا ولا لها مسلمين باقي يجوا وسوقارو وحنا كعوسنا إن مساجد كان إن اسمه سكسوق بقاتان وماشي وفي عنيدة وحلو بحلها وصدقة جارية مركا ولا لها مسلمين وحان كعوسنا سي نحريس له سي ولالتنما سي مقرانسا تعاونا سي إسلام نما مساجد كان إنay nagala soo qayb qaataan dhismihiisa ayaan ka codsanaynaa hada wabillahi tawfiiq على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة guud ahaan dadka muslimiinta ayaan baa qudiraynaa baaqaasoo ah waxdan waa qof walba tanud adduunyo way waa la iskaga tagayaa masaajidka aad saarantihi la saaran yahay hadda oo la garaacayo waa masaajidkii weynaa ibn Mas'uud la oran jiray ee ku yaala xerada leedahay Ifawan masaajidka markii uu inuu duma laga baqay ama uu roobka celin waayay ama dhibaato badan oo aan loo adkeysan karin ay ka soo baxday ayaa la dumiyay jamaacadkiisa waa kan hadda aragtaan ee taagan qorraxdu aad bay u kulushahay dadku waa iska tabar daran yihiin masaajidka marka waxaan ka codsanaynaa guud ahaan dadka muslimiinta inay qayb laxaad ka qaataan oo qof waliba waxa weeyaan ama ha yar ama ha badnaadee si degdeg dadka loogu maxaan ku loo tacaawuno masaajidkana dhagaxba laga dhigayaa guud ahaantiisa hadii la qadar sababtoo jingadii wax googo'a iyo wax maxaan ku yiraahdaa roobka celin weyda ayay noqotay marka waxaanu isu xilqaanay bacdama dad muslimiin ah inaynu dhagax ka dhigno muslimiinta meel qabo kutubta lagu akhrisan karo oo ummaddu ku tukan karto jamaacadku iyo ummaddu isugu iman karto in laga dhigo waana la bilaabi doonaa insha Allah ta'ala qiimaha iyo waxaan u baahanayn culimada qaar kamid ah sheegi doona hadii la yiraahdo الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنا نستعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بعد وسيده علمادii horeysa ay sheegeen baaq guud ayaan muslimiinta u direynaa inay nagala qayb qaataan beedkan Ilaahay dhismihiisa iyadoo qof kasta wuxuu ku bixiyaa sadaqa jaariya Ilaahay uga dhigayo raasamaalkiisa aakhirana waa xaq ay noqonayso oo qofku wuxuu bixiyo Ilaahay wuxuu kaga naaqusinayn beedka Ilaahay wuxuu ku darsado Ilaahay quraankiisa wuxuu yiri ma anfaqatu min shay'in huwa yukhlifu inta kadib muslimiinta walaalaha waxaan u sheegaynaa beedkan aan dhisayno qiimaha ku baxay injineerkiisu noo sheegay in qiimaha uu gaadhay ilaa lacag 6 milyan oo Kenya ah ama 6 milyan iyo badh oo yaraan inay ku baxayso maantana waxaan haynaa oo beedka Ilaahay aan duminay lacag gaaraysa 2 milyan oo lacag Kenya 4 milyan iyo badhka soo haray waa muslimiinta caalamka meel kasta joogan si gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee khayrka badan inay beedkan Ilaahay wax ku darsadaan suu Ilaahay xoolahooda ugu barakeeyo caafimaadkooda Ilaahay ugu barakeeyo awlaadda Ilaahay ugu barakeeyo xaasaska Ilaahay ugu barakeeyo qof kasta sidoo sadaqada oo la baxa ayuu Ilaahay ugu aqbalaya billahi ta'ala masajidkan waa kii ugu horeeyay ee xarada Ifo laga tagay sanadii 1993 ayaa waxa ku tukada kumanaan muslimiina kuwaas oo ku cibaadaystay wuxuuna qaaday dad tara badan hadaba daawadayaal muxsiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha caalamka waxa hubaala isla markaana marxaati madoona
haddii maanta aan wax ku bixinayno arrimo qabiil reer hebel reer qasax iyo reer abaq iyo kooxo iyo ururo goboleed inaan lacaga badan bixin lahayn isla markaana hub iyo balaa'iyo baas lagu soo gadi lahaa balse maanta oo masjidka alle ama guriga alle la taagayo loona laayahay qarash maxaa diiday inaan wax kula baxno isla markaana maalinta aakharaan hormarsanno guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ee muxsiniinta kuwooda ajirka iyo xasanaadka jecel ayaa laga codsanayaa in ay wax ku soo taraan beedka alle culimada ayaa sheegtay in gurigan ama masaajidkan ugu weyn xerada qaxootiga ifo ay ku baxaysa lacag dhan 6 milyan oo ah lacagta dalka Kenya iyagoona sheegay inay hadda hayaan 2 milyan oo kaliya waxay ku tashanayaan walaalayaal waa aniga iyo adiga haddaba waxaa sugnaaba waa jawaabta muslimiinta Soomaaliyeed ee muxsiniinta ee ajirka iyo xasanaadka jecel walaalaha islaamka oo meel kasta joogan oo muuqeeni iyo magaceeni iyo basiirkeenaba garanaya meesha masaajidka la garaacayo oo la dumiyay baan u taaganahay waxaan codsanaynaa walaalaheena islaamka meel kasta joogaanba masjidkaas muddo badan baa xar iyo boombil lagu daadanaysay maantana waxaan jecelahay inaan ka dhigno mid dhagax ah waxaan doonaynaa in lagu garab galo oo ummadda islaamka ah waa tabar yartahay kaliya aan lagaga harin nin kastaba iyo tabartiisa inuu la imaado oo san lagu nacin oo lagu dayrinin oo walaalaheena maanta qurax baan ku tukanaynaa quraxdana la ka qaado meel kasta oo la joogo islaamka waxaan ka codsanaynaa in nala soo gargaaro oo masjidka lagu soo gargaaro waa guri ilaahay shakhsi ma laha reer ma laha waxaan codsanaynaa min ummadda islaamka mid kuna maqashay iyo kuna arkaba waan tabar yarahay in looga istaagin masjidkaas nin walba iyo taagtaada aad masjidka kula baxda sadaqa weeye